tan kale xigtana waxay tahay waxaa lagu xujay waxaa la waraaqadaada hadaa ku siino mishaar ma sheegi kartid marka waxaan ku dhahay waraaqadeeda ali siiyo may waa anaga saalna ku joognaa 4 bil 3 bil hal bil aan qaadanaa sugi aan 4 bil joog hal bil ali siiyo marka waxaan dhahay halka bil maxaa way 4 bil iga maqanay anaga saana ku qaadanaa jawaab liga dhigay laakiin kuma guuleysan laacibka Soomaali ugu wanaagsan karfana lagu siiyo dhahay keeftaxnaan aad ma san tahay marka xigtana Ilaahay subhanahu wa ta'ala ya mahad iskale Ilaahay subhanahu wa ta'ala ya mahad iskale oo maaragta intaan isoo gaarsiiyay asbaabta kooxda gaadiidka ugu tagayna ma ahayn xumaan ana aqoon ma ahayn cadaadis badan aan la kulmay laakiin asbaabta ugu tagay kooxda gaadiidka waxa kamid ah dhaqaale la'aan awgeed horta qofka maaragta ciyaaryahanka markii loo heshiinay waxa fiican inaad bixin kartid mushaarkiisa ama maaragta aad sii kartid bil walba xuquuqda uu kugu leeyahay kooxda gaadiidka waxaan ka tirsanaa 1 sano iyo 2 bil waxaan ku sheegtaba isdhig kar mishaar way ku siiyeen waxaan mishaar inta aan ka sheegi kar maahan inta isiyeen laakiin ciyaaryahanka maaragta markuu asaga oo koox u dheelay waxa fiican in xuquuqdiisa uu heli karo marka kooxda gaadiidka waxa ugu tagay asbaabta ugu weyn waxa kamid ah xuquuq la'aan awgeed kooxda 1 sano iyo 2 bil aan ka tirsanaa inta bil aan ku sheegtay waa sheega aan waxay noqonay bisha Maars aliisiye iyo bisha shanaad iyo bisha toddobaad saddexdaas bil aan ku sheegtay 1 sano iyo 2 bil aan joogo adiga waxa iga maqan 8 bil iga maqan sida jeclahay waayo qofka ciyaaryahankeena marka la heshiinayso ama markuu kooxdaada ku soo biiray waxa fiican inaad bixin kartid lacagta mishaarkiisa xuquuqda uu leeyahay hadaadan bixin karin inaad ciyaartooyga aqaadatid waxay noqonay lacagtiisa aad bixin karin wax dhibaato ah markaan ku biiray kooxda gaadiidka meesha waxa ay keenay qof mas'uul ah keenay qofka mas'uulka keenayna waxa heshiiska aan ku galnay in bil walba mushaarkii la siiyo marka taas awgeeda ayaa sabab u noqotay kooxda gaadiidka inaan ka tago dhibaatada oo kulmo walaa horta qofka markuu kireysto oo yahay ama markuu maaragta guri asaga leen uu degan yahay oo shaqadiisina ay tahay kubadda cagta shaqadiisa ay ahayn shaqo kale oo mushaar uu ku qaadanayo ay tahay kubadda cagta hadduu ka waayo lacagta oo mushaarkiisa la siineen dhibaato badan oo la kulmaa taas iyadoo jirto anoo og kooxda gaadiidka oo soo dhabar adeegay waxa ugu soo ciyaaray dhibaato fara badan oo nafsad ahaanteed ay haysato marka waxa isdhigi karaa qofka bini'aadamkiina marmarka qaar waxa maray caqabad oo maaragta aad u dhibaato badan oo noloshaada familkaaga dhibaato u keenayso hadartaan Ilaahay ayaa mahad iskale marka kooxda gaadiidka ka tagay aadan ugu farxay waayo ma jecleen inaan ka tago laakiin asbaabta ugu tagay waxa lambar 1 ka ah dhaqaale la'aan qofka ciyaaryahankiina wuxuu beeshaa mishaar waay hadaa mishaarka lagu siin waayo kooxda saa walba u fiicantay ama saa walba hoggaan ay u hees ama koob ala qaadid wax ay tirayso malahan wallahi maamulka qofka bini'aadamka maaragta hadii baahidaada oo la tiri karin kooxdan mar walba codsigaaga iyo warkaaga ku celcelinayso oo maaragta baahidaada wax laga qaban karin waxa ku fudud inaad kooxda iskaga tagto marka waxa go'aansaday waxaan ka codsaday aan maaragta aan ku barbariyay inay waraaqadeeda isiyaan way waraaqadeeda hadaan ka qaato waxaan helaa koox mushaarkeyga bixin karto ama koox mushaar siin karto marka taas maamulka ka codsaday igana way tixgeliyeen waxay isiyaan waraaqadeeda والله حقوق ماركتا waxaa lagu xujay حقوق aan ku leeyahay waa حقوق aan dhididkeyga ah waa حقوق aan leeyahay oo maaragta inta aan ka cafi karin mar walba aan ka rabo حقوقdaas tan kale xigtana waxay tahay waxaa lagu xujay waxa la waraaqadaada hadaa ku siino mishaar ma sheegi kartid marka waxaan ku dhahay waraaqadeeda ali siiyo waraaqadeeda saas u qaatay wallahi dhibaato waa dareemay laakiin dhibaatada aad dareemayso waxay noqonaysaa mid familkaaga iyo mid maaragta oo aad gudahaaga ah dadka laakiin banaanka ma dareemi karaan dhowr qof ay la soo xiriirtay dhowr qof war isoo dhaheen commentka qaarata dadka si qaldanay ugu soo jawaabayaan waxay dhahan xasaasiisa isla kibir badan isla weyn maaragta si qaldan u dhaqmo koox walba uu tago asaga ma qaldan ama iyada qaldan marka qofka ciyaaryahanka farsamadiisa markuu soo bandhigo dadku way jeclaanayaan aan dadku waxay ugu jeclaadeen waa farsamadan aan leeyahay marka kooxda gaadiidkina wax weyn maaragta ugu tagay oo dhibaatada maaragta 1 sano 2 sano heshiis la galay oo contract ah waxa ugu tagay waxa kamid ah mishaar la'aan qofka ciyaaryahankan wuxuu beeshaa waa mishaar hadaa mishaarka weysid lagu siin waayo dhibaato leedahay marka saas ugu tagane koob guuleysanay ciyaaryahanka markuu koob guuleysto kubadda cagta saxda markii lagu dhaqmay waxay tahay abaal marinay leeyeen ciyaartooyda dhan oo koobka keeneen waa kooxda champion waay kooxna markii champion ay tahay waxay mudantay waxay soo shaqeysatay anaga laakiin mudnaanteena ilaa hadirtaan labada ciyaartooy isla sheekaysatay marka dhaad kooxda goorme wax loo dhigaa meel ay ku sheegayso malahan
marka aan nafsad ahaantay waxaa go-aansadaba inaan sugin waxaas dhan. wallahi horta qofka maaragta oo familka ah ilaahay maaragta miskiin u micin waaye, qof walba asaa maaragta adduunkan ku arsaaqo, qof oo baahi u dhimanayo ma jirto. marka mar walba anaa iska dibirayo karideeda, nin raga ahay, nin faamosa ahay, waxaan leeyahay dad badan oo asxaabaan leeyahay, nafsadeedan iyo maaragta karideeda iyo nolosheedan anaa dibiri jira. wallaahi horta waxaa isdhihi karaa qofka ugu dhibka badan ama qofka maaragta ugu saameynta badan adu waaye. waayo ciyaartooyda gaadiidka badanaa waxaa laga keenaa Kenya laga keenaa, meeshay degiin way haystaan, raashin way cunaan. marka qofka wuu sugi karaa 5 bil 6 bil 4 bil mishaar laan way sugi karaan. ana bilooyinka ku aan tagay waxay ilna qaweyso wax macquul aan ahayn. waayo waxaan ka tagay koox weyn aan ka tagay, horseedaan ka tagay, horseedna mishaarka waxay bixi jirtay 25 bisha oo la gaarin. marka bisha koow markay dhamaatay, bisha labaad aa dhamaatay, bisha saddexaad marka waxaa dhahay ciyaartooyda qaar lacagta hoos ma laga siiyaa. may waa anaga saalna ku joognaa 4 bil 3 bil 1 bil aan qaadanaa. wax maskaxdeeda galweysay noqotay. marka maamulka aa weydiinay waxaa la lacagta waa la qaataa laakiin way soo socotaa. waa sugi aan 4 bil joog 1 bil aan leesiyay. marka waxaan dhahay 1 bil maxaa way 4 bil iga maqanay, anaga saana ku qaadanaa jawaab liga dhigay. marka marmarka qaar marka gud maaragta kula lugta kula jirtid meel ugu baxsanaysa malahan. marka waxaa go-aansaday inaan lacag mishaar aan ka hadlin, aan eraglimadeeda aan fuulo, wax walbana maaragta halkaas aan ugu dhameeyo. wallaahi horta kooxda gaadiidka inta ka tirsanay wax badan waa arkay. marka qaar taa waxaa isdhay kubadda cagta Soomaaliya iskaga baxdaa iska dhaaftaa. hadan dadaan la tashtay waxaa la dhahay kubadda cagta waqti aad ka baxdo kuma jirtid, wax walba alaal maaragta waa lagu dhibtoodaa, dhibaatada aad ku jirtid mar una ka bixi iska ciyaar. marka go'aan waxaan ku gaarubinaa iskaga dheelo bis. dhibaatada wallaahi nooc badan ay noqon kartaa. hadda ka hor midaan saaxiibnahay, adi saaxiib saas aan mahan, adi kora iska naqaane meel baarbiir anoo joogo anoo soo galay dad islaam ah arkay. marka wuxuu dhahay asaasi oo sheegay adimiya haa wuxuu dhahay horta waa ku hambalyeena maadaama aad guuleysto laacibka ugu wanaagsan Soomaaliya, laakiin kuma guuleysan laacibka Soomaaliya ugu wanaagsan karfana lagu sii u dhahay. karfantaasna waxaa dhibaato kugu naqanaya u dhahay mar alaala mar walba marka harayso dhahay dhibaatada had ku saaran way ku haysanayeen. marka dhibaatada maxay tahay markaan aan wuxuu dhahay maadaama aad guuleysto dhahay guushaas waxay ku keenaa wada dagaal badan, dagaalkiina waa arkay. wallaahi kooxeen way ila soo xiriireen laakiin ilaa hadarta wili go'aan ma qaadan. qofka bini'aadanka maaragta marka qaar markaa guudid go'aanka ma ku degdegayso. marka waxaan rajeynayaa insha Allah si degan inaan maskaxdeeda u fikiro, kooxda aan ku biiray inaan noqoto koox maaragta oo aniga ahaan ay qancin karto. wallaahi rajada kubadda cagta aan ka leeyahay rajo maaragta inta aan kusoo koobi kar ma ahan. waana rajeynayaa insha Allah mustaqbalkayga iyo tiinkayga inuu inaqan doono kubadda cagta Soomaaliya hadartan wax faa'iido ay leedahay malahanba inaan mustaqbalka ka yeesho jecel insha Allah.